aad wada joogtaan abad nolosha isku darsateen xumaan iyo wanaag intaba uu yeelan karaa waxaad arkaysaa gabadh ninkeeda ceebtiisa faafinaysa walaashin firsan iyo dumarkaaga channel soo dhawaada oo warantaan ugu subtaay subscribe noo saar hore hadaan nala joogtiisa nala sii joog wixii fariina comment noogu reeb aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan rajaynayaa inaad nabad qabtaan maanta waxaan noo wadaa video cusub oo ka mid ah videoyadii channelka inooga socon jiray okay maanta muxuu yahay videoga noo wada waxaan la hadlayaa maanta talo yar oo dumarka ku socota baan siinaya gabadhay ma ogtahay ilaahay marka uu labada qof isqaban iyo gabadh inay isguursadaan uu u jideynayay amba uu u jideeyay waxyaabo badan ayuu noo sheegay maxaa ka mid ah wuxuu ilaahay noo sheegay uu yiri labadan qof waxay isku yihiin dhar macnaha dhar haddii fahmi kartaana waxa weeyaan laba qof oo is asturaya imika adiga dharkaaga aad xiran tahay sababta u xiran maxay tahay dharkaaga soo inay ku asturaan ma xiritid haddii qof dhar la'aan ku baxo maxaa dhacaysa qof qaawan inuu yahay okay haddaba macnaha dhar waxa weeyaan ila adigana qofkan ku asturayo adigana aad asturaysid okay marka intaas isla fahanay haddaba waxa meeshii taala gabadhay ninkaaga amba rag buu ku jiraan aan ku darno talada ay ka laftirkooga laakiin marka aad qof aad isqabtaan uu yahay khaasatan anu maadaama dumarka aad u la hadlo dumarkan u badinaya sheekada arinta gabadhay ninkaaga ma ogtahay xumaantiisa amba wax xumaan haddaad ku aragtid ina aad intaad faafisid ceebihiisa aad faafisid hadhow toola haddana aad ninkii la sii joogtid inay adiga ku xun tahay carruurtaada u xun tahay ninkaaga u xun tahay sorry qofka aad wada joogtaan abad nolosha isku darsateen xumaan iyo wanaag intaba uu yeelan karaa adaa yeelan kara isaga yeelan kara okay hadaba adiga maxaa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay qofkan waxyaabahan aad ku arkaysid ma yahay waxyaabo aad kula noolaan karaysid okay wixii samaha afkaaga qabso reerkaaga dhaqo maxay ahayd wixii khalad isiga ka aragtid amba aad dhibsanaysid asaga u yeed la fariiso kala hadal waxa tiraahdaa 1 2 3 baan kugu dhibsanayaaye iga bedel arinkaas ma bedelin waa bedel waayso maaha haduu yahay marka waxyaabo yar yar oo basiid oo laga gudbi karo iskaga gudub haduu yahay waxyaabo culus oo laga gudbi karin hadaba family baad leedahay family isugu leeyahay dadkiina u bandhig familiyada u bandhig arinkaas baan maxay ahayd ninkan uu iska aan ku arkay iska bedel marka aan idin iska bedel waay waqti inta leegna waan siiyay laba mid waa meesha inoo taala miyaan isbedelayo diiwaan oo sii wada joognaa mise anigu sidoo kuma joogi karayo labadaba adiga ku hadaba waxaad leedahay wixii ma ku noolaan karaysaa may wixii ma iska bedeli karaya waa may adiga laba mid ku taala ikhtiyaarkaaga miyaad la joogi karaysaa oo arintan aad ka gudbi karaysaa mise lama joogi karayso waxaad rabtaa inuu isbedel imaado isbedelkii hadduu imaan kari waayo marka adiga waxaad ku qasban tahay laba mid inaad la sii joogtid oo saa ku noolaatid iyo inaad ka baxdid labada wax ka dhaxeeya male okay marka inta ka soo gudubna hadaba walaalayaal gabdhow dad muslimiin nahay karayso Soomaha okay hadaba walaalayaal waxaan dad muslimiina ilaahay aynu ka baqno sidan aynu iska diino waxaad arkaysaa gabadh ninkeeda ceebtiisa faafinaysa ha noqoto xag gogol ha noqoto xag maxay ahaydey rag waxa iska jira saqajaamiin oo iska shukaansiga laftirkiisa waxyaabo macnaha idab dara sameeya waxa jira maxay ahaydey rag iyo kuyo xaasas loo reerale iska suuqa iska jira intaba okay hadaba walaalay adiga mid baa ku banaan mid baa lagaaga baahan yahay waxaan ma yahay wax diinta ka hor imanaya amba diintana aanay ogolaan waxa ku banaan ina aad maxay ahayd arintii aad family iyo culimada u bandhigtid wixii marka ay adiga diintu ku banaynayso aad ka yeeshid okay mid kale waxa noqotay waxyaabo yar yar oo iska basiid ah jira waxyaabahaasi oo diinteena waxba yeelaynin haddii aad ku joogi kartid haddii kale baad ku taala laakiin waxaad iska daysaan inta aad ninka aad ceebihiisa aad faafisid haddana maxay ahayd aad family iyo cid kasta iyo waxa ku dhaxay dad kale oo family-ga ahayn ay gaadhaan arinkii haddana ku macnaha aad hadana la sii joogisid oo carruur u sii dhaldhalaysid isla xishoonaysid miya waxyaabaha aad sheegaysid oo naaga qayrka ayaad u sheegaysid wixii family aad xataa la gaarsiiyo waxaan u arkaa anigu qof xal raadinaya laakiin qof
gabdho amba naago sideeda wax u sheegay oo maxay ahayd arrinkii ceebtii ninkeeda u sheegtay haddana la sii joogtaa ilaahay u sheegaya gabadh adiga sirtii amba ceebteed adiga qarsan kari weyda afka ka haysan kari weyday gabadh iyo nin qofku doonaba ha ahaado qofka aad afka u kala furtid ee adigu taad haysan kari weyda aad u sheegtid waxaad ogaataa kow inaan waxba ku haynaynin laba waxaad ogaataa maxay ahayd in adiga wax kastoo ceebiba kugu soo noqonayso naagtii ninkeedu sida ahaa weeyaan marka waxaad leeyahay video mar rabo inuu sii dheeraado waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum intaan ku kulmayno video xiga aad baan idin salaamayaa